si isbedelkaagu adigana wax kuu taro deegaankaaga iyo dadkaagana nafci uu taro adigu wax baro ha isbedel ay waxbarasho ka maqan tahay isbedel maaha waa is adkaysi iyo mid aan wax tarayn waa inaad naftaada diiniyan iyo maadiyan kor u qaado adduunka qofka waxa kor u mariya waa aqoonta aqoontu waa human capital hantida bini aadanku waa aqoon ha haddaad aqoon barato mid diiniya iyo mid maadiya heerkaaga iyo darajaadkaaga korba u kacaya haddaad san wax baran oo aad istiraahdo meeshan aan isku ilaalinaya markasta hoos baad u sii socotaa marka waa inaad adiguna waxbarashadaadana ku dadaasho oo kor u qaado dadkaaga iyo naftaadana waxbarashada dib aad ugu soo celiso oo aqoontu maaha inay mid guri kugu xidhee waa inay noqoto mid guryaha iyo deegaankaaga laga dareemo oo aad percentage fiican dadkaaga iyo deegaankaagaba ku soo celiso oo aad samafal ka qayb qaadato oo aad activity ka qayb qaadato oo aad noqoto qof wanaaga kun suntan oo bara dadka kale wanaaga ha muhiim ma aha adoo magac leh oo kaliya maamuus la oo position lagu siiyay wanaag samayso waa inaad adagoonan xil siyaasadeed raadinayn ummadda waxaad ka rabtina jirin waa inaad wanaag ugu shaqayso ha wanaagu waa inuu wanaag ku amro wanaag baad samaynaysaa dadka wanaag bar oo wanaagaas sameey marka aad iyo aad baad u mahadsantiin fadlan muuqaalka inoo sii shargareeya meel fogna inoo gaarsiiya lana wadaag asxaabtiina si aan u helno sida dadka idinkoo kale u qiimo badan barteena YouTube ee profile-ka saarana booqo oo subscribe inoo saar macluumaad muhiim oo ku soo gudbin doono ayaa jiri doona iyana ku dhaafina rukumo aad iyo aad baad u mahadsantiin saaxiibayaal